bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka. dowladda iiraan ayaa weeraro ballaaran oo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxay ku qaaday saldhigyo ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin bariga dhexe, waxaana dowladda iiraan ay ka jawaabaysay duqayn maraykanka xalay uu ka fuliyey qaybo badan oo ka mid a koonfurta dalkaasi iiraan. maraykanka koonfurta iiraan waxbuu ku arkay, wuxuu inta badan doonayaa inuu beegsado goob kasta oo u arkayo inuu ka curyaamin karayo la socodka dowladda iiraan ee dhaqdhaqaaqyada marinka hormus. garoomo diyaaradeed, xarumo isgaarsiin ayaana ugu badan goobaha la beegsanayo. bayaan ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa lagu sheegay waa berigii maanta inay beegsadeen saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin baxrayn, kuwait iyo sidoo kale saldhigga lagu magacaabo al asraaq oo ku yaala gudaha dalka jordan. iiraan markaa weeraradii ugu dambeeyey maraykanka ayay sheegtay si weyn inay kaga carootay, waxaana ay fariin digniin ah u dirtay xukuumadda washington oo waxay tiri haddii weerarada ay sii socdaan jawaabo adag ayaad la kulmi doontaan. ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen 21 bartilmaameed oo ay ku jiraan saldhigyada ciidamada badda iyo kuwa cirka ee maraykanka uu ku leeyahay dalalka khaliijka. wakaaladda wararka ee faris ayaa intaa ku dartay in weerarka saldhigga al asraaq ee dalka jordan uu sababay burburka 4 goobood oo ay ku jiraan hangaro ama qeybta lagu kaydiyo diyaaradaha dagaalka, gaar ahaan diyaaradda F-35. haddii markii goobtii la dhigayay diyaaraddaasi ee waxyeello ay soo gaartay, ma waxay ka dhigan tahay diyaaradda F-35 dowladda iiraan inay waxyeello gaarsiisay? waa waxyaabaha la isweydiinayo. faahfaahin lagama hayo, laakiin macluumaadkan oo kale ama weerarka dhacay maanta oo kale faahfaahintiisa mar walba dib ayay ka soo baxdaa. marka dowladda kuwait waxay soo saartay qoraal ay ku leedahay dhowr gantaal iyo diyaarado daroonisa ayaana lagu soo weeraray, dhammaan diyaaradahaasi gantaaladana waan soo ridnay. wargeyska Financial Times oo soo xiganaya mas-uuliyiin Amerikaanana waxa uu sheegay in saldhigga ciidamada maraykanka ee dalka Jordan waxyeello inaanay soo gaarin. waxaa la isweydiinayaa marka maxaa saldhigga Jordan oo keliya loo cadaynayaa inaanay waxyeello soo gaarin, maxaana looga hadlin saldhigyada kale ee maraykanka ee ku lahaa baxrayn iyo sidoo kale kuwait. labada dowladood ee baxrayn iyo kuwait hore ayay weerar kala duwan ay ula kulmeen. mas-uuliyiinta maraykanka waxay leeyihiin ilaa ay hadda ma hayna cadeymo muujinaya in iiraan ay si guula u garaacday bartilmaameedyadii ay beegsatay, mana jirto dhimasho iyo dhaawac ciidamada maraykanka soo gaartay. kadib weeraradaasi, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa sheegtay in ciidankooda qalabka sida ay beegsadeen saldhigyadii laga soo qaaday weeraradii ugu dambeeyey. waxay dalalka gobolka ugu baaqeen inay iyaga ay qaadaan mas-uuliyadda ah in dhulkooda la isticmaalayo, iyagana ay sabab u yihiin dagaalka inuu sii socdo iyo in iyaga la beegsadaba. qoraalkan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ka soo baxa ayaa sidaa lagu sheegay, waxaana lagu yiri dowladaha gobolka ee khaliijka kuna yaala gacanka khaliijka waa inay qaataan mas-uuliyadda ah in la joojiyo maraykanka inuu isticmaalo dhulkooda lagana soo qaado weerarada gudaha dalka iiraan laga fulinayo. maraykanka ayaa lagu eedeeyay inuu fuliyo weeraradii ugu dambeeyey, isagoo marmarsiyo ka dhigtay in dowladda iiraan ay soo riday diyaaradda Apache lagu magacaabo. diyaaraddaas oo agaarka marinka hormus ku soo dhacday, inkastoo Teheraan dhacdadaasi si rasmi ay u beenisay. seeriga digniinta ayaa laga maqlay maanta sidoo kale gudaha dalka baxrayn mar kale, sida la sheegay kadib markii dowladda iiraan halkaas ay beegsatay, iyada oo Centicomna ay sheegeen inay koonfurta iiraan ay ka fuliyeen weeraro aargudasho ah, iyaga oo uga aargudaya soo riditaankii diyaaradda lagu magacaabo ama diyaaradda helikobtarka ah ee nooca Apache. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan waxay dhahdeen maya, marmarsiyadaasi wax soconaya maahan, annaga diyaaraddaasi ma aanan soo ridin. maraykanka ayaa doonaya inuu marmarsiyo ka dhigto. dhinaca kale, wargeyska iyo dacood axranood lagu magacaabo ayaa baahinaya in dowladda iiraan ay saaxiibadeeda xuutiyiinta yeman ay la hadashay, xuutiyiinta dalka yemanna ay ka digayaan khatarta ah dagaalka in dib loogu laabto iyo inuu ku baaho guud ahaan dhanka gobolka. xuutiyiinta dalka yeman ayaa dhowaan soo saaray amar ay ku mamnuucayaan in maraakiibta Israel u socda iyo kuwa ka yimidba ay adeegsadaan biyaha badda cas. iiraan marka waxaa lagu waramaya iyadoo ila wareedyo kala duwan laga soo xiganayo inay xiriir la samaysay xuutiyiinta dalka yeman. afhayeenka baarlamaanka ee dowladda iiraanna waxa uu yiri iiraan waxay haysataa dooqyo kala duwan, dooqaas oo dhanka diblomaasiyadda haddii la isku fahmi waayo dhinaca kalena ay ula xisaabtami karayso maraykanka iyo sidoo kale Israel. sidoo kalena Cabbaas Araqji, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan, ayaa waxa uu sheegay in haddii iiraan
wax yar oo yani fallaara haddii lagu soo tuuro iyagana fallaara ay tuuri doonaan. Yani weerarka lagu soo qaada mid la mid a inay mar walba iyaga ay fulin doonaan oo jawaabna ay ka bixin doonaan oo aysan ka aamusi doonin wax kasta oo dhaca. waan arki doonaa dhammaan arrimahan waxyaabaha kasoo kordha khasaare lama diiwaangelin labada dhinac, mid walbana waxaad moodaa inuu xogta rasmiga ah qarinayo, laakiin mar walba macluumaadka way soo kordhi doonaan, waana kula wadaagaya insha allah. macluumaad dheeraad oo soo baxaya ayaa sheegaya in xaaladda magaalada Ghaza mar kale inay wajahday khatar dagaal oo cusub, iyadoo Israa'iil ay diyaarinayso qorshe militari oo ballaaran oo ay doonayso mar kale inay weerar ay kaga fuliso gudaha marinka Ghaza, halka dhinaca kalena ay socdaan dadaalla diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xoojiyo xabajoojinta magaalada Ghaza. sida wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxa uu daawacay iyo telefishinka Al Jazeera, taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Eyal Zamir ayaa waxa uu ansixiyey qorshe howlgal ciidan ah oo cusub oo sida la sheegay laga fulinayo magaalada Ghaza. qorshahan waxaa soo bandhigay taliyaha taliska koonfureed ee ciidamada Israa'iil Yanif Asor, kaas oo sida la sheegay soo bandhigay inaysan jirin cid caalami oo diyaar u ah in awood ay u yeelato in hubka ay ka dhigto xoogagga iska caabinta. sidaa daraaddeedna wuxuu sheegay Israa'iil in iyada mustaqbalka ay ku qasbanaan doonto weerar cusub oo ballaaran, waxaana lagu warramayaa hadda in loo tafaxiidanayo sidii dagaalka magaalada Ghaza dib loogu bilaabi lahaa, iyadoo Israa'iil ay doonayso inay tiraahdo annaga ayaa hubka ka dhigayna xoogagga iska caabinta ama ku qasbi doona. warbixinada dhanka amniga waxay sheegayaan in xoogagga iska caabinta bilihii lasoo dhaafay ee dib ay u dhiseen qayb muhiim ah oo ka mid a awoodooda dhanka militariga, oo ay ku jiraan shabakadaha godadka dhulka hoostiisa mara, xarumaha taliska iyo nidaamyada hoggaanka. ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay rumaysan yihiin in dhaqdhaqaaqa xoogagga iska caabinta ay sii kordhiyeen marka la eego qaybo badan oo ka mid a gudaha magaalada Ghaza, iyadoo Israa'iil ay gacanta ay ku hayso 60% dhulka magaalada Ghaza. si kastaba Israa'iil si rasmi ah uma aysan ansixin qorshaha ballaaran ee dagaalka, inkastoo ra'iisul wasaare Netanyahu ku cadaadiyey hay-adaha amniga in ay dadejiyaan diyaargarowga dagaalka dib loogu laabanayo. Netanyahu ayaa doonaya in dagaalka dib loogu laabto isaga oo u arka fursadda kaliya ay haystaan waqti xaadirkan inay tahay inay ka faa'iidaystaan sidii ay uga cadaadin lahayn xoogagga iska caabinta in hubka ay dhigaan. magaalada Qaahiro waxaa ka soconaya wadahadallo u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo sidoo kale Turkiga. afhayeenka xoogagga iska caabinta ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu ay si wanaagsan ay kaga jawaabeen soo jeedimaha lagu doonayo in lagu sii xoojiyo heshiiska xabajoojinta iyo in la dejiyo qaabka maamul ee magaalada Ghaza. sidaa ay sheegeen ilaha ku dhow wadahadallada, waxaa horumar laga gaaray inta badan qodobadii miiska saarnaa, waxaana dhinacyadu ay gaareen isfaham hordhaca oo ku saabsan maamulka magaalada Ghaza, arrimaha amniga. hase yeeshee arrinta hubka dhigidda ayaa qodobka ugu adag ee aanan weli la isku fahmin. wararku waxay tilmaamayaan in kooxaha Falastiiniyiinta ay aqbaleen mabda'a ah in hubka lagu koobo hay-ad Falastiini ah oo si wada jir ah loogu heshiiyey, laakiin Israa'iil waxay ku adkaysanaysaa in dhammaan hubkaas ay la wareegaan ciidanka caalamiga ee la qorsheynayo in la geeyo magaalada Ghaza, kuwaas oo qayb ka ah qorshe hore uu soo bandhigay madaxweyne Trump. bishii hore ergeyga caalamiga ah ee magaalada Ghaza Nikolai Mladinov ayaa soo bandhigay qorshe ka kooban 15 qodob oo lagu hirgelinayo heshiiska joojinta dagaalka, waxaana ka mid ah in la xadido ama la baabi'iyo hubka ay haystaan xoogagga iska caabinta ee Xamaas iyo kooxaha kale ee iska caabinta. ila ku dhow wadahadalladan ayaa sidoo kale sheegay in qodobada badankood la isku afgartay, balse hubka weli uu yahay caqabadda ugu weyn. haddii xal laga gaaro qodobkanna waxaa suuragal noqon karta in xabajoojinta la sii adkeeyo, haddii kale waxaa jirta cabsi ah in Israa'iil dib ay ugu laabato dagaalka ballaaran sida Israa'iiliyiintaba ay qorsheynayaan. siday sheegeen maamulka magaalada Ghaza tan iyo markii xabajoojinta ay dhaqan gashay bishii Oktoobar 2025, duqeymaha iyo dhacdooyinka Israa'iil ee fulisa ayaa sababay dhimashada 985 ruux iyo dhaawaca 3,096 kale. dagaalka magaalada Ghaza ee socday muddada 2 sano ku dhow ayaa sababay khasaare aad u weyn oo naf iyo maalba leh, inta badanna kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyadii magaalada Ghaza gabi ahaanba waa ay burbureen. waan arki doonaa arrintan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaanu kugula wadaagaya insha Allah.